فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. masaajidadii ayuu baab u yahay. masaajidada aadaabaha loogu talagalay iyo nadiifiyo ayuu tilmaamaya. masaajidadu waa goobo ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala. la mid ma aha kale, la mid ma aha guryaha kale, waa guryo qaas ilaah u ah subxaana wa tacaala. waxaa inta badan camiro oo yimaada dadka iimaanka leh, rabbina rumaysan subxaana wa tacaala. innamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllah, qofka ilaahay rumaysan iyo maalin aakhiro, cidna aan ka cabsan ila allah, kuwaas inay hanuunsiin baa suuragala buu dha ilah subxaana wa tacaala. idan masaajidada waa shayaha ugu muhiimsan, waa goobaha dadka muslimiinta ah ugu qiimaha badan dhexdooda, in la camirana aad iyo aad u qiimo badan yihiin. nebiga ihtimaam buu siin jiray sala allahu calayhi wasalam. rasuulka sala allahu calayh wasalam markuu maka ka baxay, madiine uu tegey, intuusan nebi moxamed guri dhisanin masaajid buu dhistay sala allahu calayh wasalam. ninkeena maanta magaalada soo gala waxa ugu horeeyu samaysto waa inuu suuq furtaa, waa inuu meeshaa suuq ka bilaabo. nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wallaahi guri uu degay intuusan samaynin bayt ilahi buu sameeyey subxaana wa tacaala. ilan waa asaas, waa muhiim, waa goob cibaado, waa meel muslimiinta isugu yimaadaan, waa goob aad iyo aad u qiimo badan. markaa kabacdi baa girihiisii loo sii dhisay sala allahu calayh wasalam markii madiine uu gudaha u soo galay. can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi amara rasuulullah, rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay wuxuu amray bibinaa'i lmasaajidi, masaajidada in la dhiso, fi duuri, xaafadaha dhexdooda lagu dhiso, iyo wa an tunadafa, in la nadiifiyo, wa tudayaba, la udgiyo, la carfiyo, wax carfay lagu shido. rawaahu axmed wa abu daawuud iyo watirmidiyu wasaxaxa irsaala. wuxuu saxiix yeelay tirmidi xadiidka irsaalnimadiisa. in hadduu saa noqdo waa daciif baa la yidhaahdaayo waxaa khilaafi ka taagan yahay wasligiisa irsaalkiisa. saa darteed ayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha qaybaha ka mid ah. axaadiise kale baa tilmaamay masaajida dhismahooda inay yihiin wax aad iyo aad u fadli badan, in la nadiifiyo. axaadiise qiimo badan oo aad iyo aad u saxiixa ayaa jira, in la udgiyo saas oo kale. saa darteed caaisha waxay leedahay rasuulka wuxuu amray sala allahu calayh wasalam masaajidada fi duur in lagu dhiso, magaalooyinka ama xaafadaha, wa an tunadafa, in la nadiifiyo, oo wa tutayaba, la tiibiyo, markaana la udgiyo. وcan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qaatala allah, ilaahay ha dulleeyo alyahuud, yahuud allah lacanado. ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim, nebiyadooda qubuurtii ay ku jireen bay masaajida ka dhigteen. muttafaqun calayhi. wazaada muslim wuxuu ku siyaadiyey wاnasaara, qaatala allahu alyahuuda wاnnasaara, yahuud iyo nasaar baa allah lacanado. waayo ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim, ambiyaashooda qubuurtoodiiba waxay ka dhigteen masaajida, meel lagu caabudo ee imtiqaanaa goobo cibaaday ka dhigeen. idan haddii masaajidada loogu talagalay in alle lagu caabudo, goobo cibaadana ay yihiin, waa in qubuurta laga fogeeyaa. marka horeyna waan u soo tilmaannay maqbarada iyo meelaha imtiqaanaa meelo kale inay mamnuuc tahay in salaadaha markaa lala aado, in salaadaha markaa lagula qasdo. marka dadkan qubuurtii ambiyaalkayba masaajida ka dhigeen. wazaada muslim wاnasaara ayuu markaa ku siyaadiyey. walahumaa, waa labadooda, waa muslim iyo bukhaariya, min xadiidi caaisha radia allahu canha, kaanuu waxay ahaayeen buu dhahay nebiga, kaanuu waxay ahaayeen, walahumaa min xadiidi caaisha radia allahu canha, kaanuu waxay ahaayeen waa yahuud iyo nasaare, idaa maata hadduu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu الصaalixu, nin wanaagsan, bana way dhisi jireen, calaa qabrii, qabrigiisay masjidan, masaajidku dhisi jireen. wa fiihi xadiisku waxaa ku dhex sugnaa ulaa'ika
shiraaru lkhalqi waa khalqiga ilahay kuwa ugu sharta badan. kuwaasi waa intuu ilaahay khalqay kuwa ugu shar badan. saasuu marka rasuulku tilmaamay sal alla alayh wasalam. xaaladda waxay tilmaamaysaa marka weliba xaaladan markuu nebigu dhahayo waa aakhir xayaatii noloshiisa gebagabadeeda. waxay leedahay caaisha wuxuu nebigu saarnaa buste, markaasaa markuu ku caburmuu iska faydaya. rasuulkaasoo xaaladiisaa ay tahay buu yidhi ilaahay ha lacanada yahuud iyo nasaara masaajidadii ambiyaalshii nebiyaalkii masaajidadooda ay ka dhigtay, macnaha qubuurahoodii iyay masaajida ka dhigeen. waxay ahaayeen rajul saalix haddii uu dhinto qabrigiisay masaajid ku dhisi jireen, meeshaasay ku kor caabudi jireen alleh. wa fiihi ulaa'ika shiraaru lkhalqi waa khalqigu ugu sharta badan. weliba gabadhi maxabiib markay uga sheekaysay umu salama wixii ay ku soo arkeen xabasha markay u jiroodeen, kiniisadaha, tasaawirta, masawirada sida ay markaa yihiin. ya rasuulku wuxuu dhahay mid ayay ka mida hadduu dhinto oo macnaha rajul saalix uu ku dhex dhinto qabrigooday masaajida ka dhigi jireen, meeshaasay markaa cibaadada la qasti jireen. iska ilaaliya idinka ulaa'ika shiraaru lkhalqi waa khalqiga kuwa ugu sharta badan. wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaa الnabiy nebigu wuxuu diray sala اllahu calayh wasalam khaylan fardo, waa ciidan fardooley ah. fajaa'at birajulin nin bay la yimideen, farabatuuhu waxay ku xidheen bisaariyatin tiir oo min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid ah. alxadiid xadiidka dhammaystiro macnaa wuu dheeraa muttafaqun calayh. qayb ka midoo horaan u soo marnay xadiidko waa ninkii humaam ibnu haali markaa la soo qabtay, masaajidkaa lagu soo xihay. kooxdaa fardoolayda ayuu nebigu diray sala allahu calayh wasalam, ayagoo magaalada gaar ka hayo saa ugu rondaynaya. yaa ninkaanoo cimro u socdaa oo weliba mutaqaanaa cadow islaamna ah, in badanna muslimiinta dhibaato ka gaarsiiyey ayay soo qabteen, dhiiggiisana hadri markaa ah. say u soo wadeen bay masaajidka soo geliyeen, masaajidka tiir ka mid ah tiirarka masaajidkaa lagu xihay. muttafaqun calayhi. waan soo marnay waana ka soo hadalnay qisadiisa. wa canhu radia allahu canhu وأبي هريرة أن عمر رضي الله عنه أيام مرة وحسو مري بحسان بن ثابت نك لغو مغعابو او ينشد قبيايا في المسجد مساجد كدحديسا. حسان انتو سوقاتي كرسي ميشا مساجد كلا فريستي قبي ترينايا يا عمر سو مري. عمر نأدبو أدكاف ومدو القادن كرين وحيابا حد قذبكها فلاحظ إليه ومن عصد مركا ولي بحب أفيريه qofka markaad caadi u fiiriso iyo mar allaala marka dagaal si dagaal aad u fiiriso way kala duwan tahay. wuxuu u fiiriyey si aad yaad u daran. faqaala xasaan wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa unshidu mid ku gabya wa fiihi gudihiisana masaajidka ula jeedaa man qof baa ku jiray huwa khayru minka kaa khayr badan ee dhaafooy. adiga oo ninka khayr badan uu masaajidka ku jiro yaan shicir ku tirin jiray. muttafaqun calayhi. oo wuxuu ula jeedaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. saa la socotaan xasaan bin haabit waa shacaarka nebiga sala allahu calayh wasalam. shicirku waa mamnuuc dhinac marka laga fiiriyo. qalbigaaga iyo xabadkaagaoo malax buuxisaa ayaa ka khayr badan intuu shicir buuxin lahaa. axaadiidaha noocaas waxay tilmaamayaan waa shicirka iyo gabayaalka aan qiimaha lahayn. dad baa gabay iska tiriya way kufinaya kuu kor alifanayaan maanta dhanba saanaa wax qiimo u leeyahay markaa ma jiro. qaarna aroosadeeda ka gabyaanba waxgaas wuxuu leeyahay waa mtaqaanaa intuu yimaado wuxuu leeyahay ii sheega gabadha magaceed aroosada ah iblaaya la dhahaa, wiilkaana hebela la dhahaa. labada magac buu soo qaadanaa keliya ugu horeeya ma jiib wuxuu markaa yahay. waa ka soo bilaaba kow ilaa hal saa wuxuu wadayaa ma keliya. gabadhii mar inaeedu maantooda ammaanaya iblaayo saanaeede ma waxay ka baxdayo martiday soortaayo miin uu markaa ku wadaya. wiilka magacii faarax fa buu soo qabsana haddana koruu ku soo bilaaba waa ku dhammaynaa fa hal marna gafi maayo. dad noocaasaa jiraan. gabaygu hadduu saasoo kala noqdo qiimihii faa'iida ma laha. shicirkan lagu tilmaamay waa in diinku wax u taraa, waa in diinka lagu difaacaa, waa in mutaqaana islaamka wax loogu qabtaa. rasuulka sal alla alay wasalam margool ka mid ah xasaa intuu soo qaado uu soo wado iyo wuxuu ku fadhiisan jiray mimbarkuu dhihi jiray shicir tiri malakul jibriil ama ruuxul qudus ilaahay kugu ayidee. macnaha mar allaala markay gaaladu soo hujuumaan oy shicir iyo gabidiinkay ku caynayaan ay soo tiriyaan yuu u jawaabi jiray radia allahu canhu. meesha waxaad ka fahmaysaa shucaro badan maba lahaynba, hal ama labay ahaayeen. laakiin annaga shaqadan dhanba waa hees iyo shicir iyo gabay iyo maanta xirfad buu noqday lagu shaqaysto.
qofku wuxuu baranayaa waxa ugu horeysaba sheer uu ku shaqaysto ilmaha lagu koriyaa waxbaa lagu waxeeyaa marba marka ka dambayso kula sii tagaysaa washucaraa yattabicuhum alghaawun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan samaynin bay dhahayaan maantao dhan wuxuu ku gabyaya waxaan markaa ka jirin marka sidaa darteed xasaan bin haabit wuxuu leeya cumarow idhaaf oo iga leexo aniga masaajidka waan ku tirin jiray shicirka asagoo qofkaa khayr badan uu joogo rasuulku ula jeedaa sal alla alayh wasalam cumar maa ciyaartaa qaadanaya hadda markhaatii keen buu yidhi haddii kale lagu garaacaya hadda markhaati ii keen abu hurayra suuragala inuu markhaati kacay saasaa markaa lagu dhaafay cumar xaaladiisu aad bay u adkaan jirtay cumar radia allahu canhu ilaah baa diinka ku ayiday radia allahu canhu wa canhu waa saxaabiga roole wa abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man samica qofkii maqla rajulan nin yanshudu naadinaya daalatan baadi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falyaqul ha u dhaho laa raddaha allahu calayk ilahay kuma soo celiye ka fadhiisa masaajidka ilahay kuma soo celiye faina almasaajida masaajidadu lam tubna lihaada waxaa looma dhisine geel baa ninka dhumo masaajidka istaagay geelkeyga iyo arkay ka fadhiisoo dhaan ilahay kuma soo celiye geela iga dhumi saacadeedii arkayd soo istaagtid waa mamnuuc aragta meeshaasaa laguu suraa wax allaala wixii dhumaa haddaad aragta qaado haddii kale xafiiska taga soo weydii ama bannaanka istaag masaajidka dhexdiisa baadiyaa lagu waxaysanay saacad kaa dhuntay iyo faraatiyaa iga dhumin gabdhahoo kale faraatigiiyaa arkay iyo dhegigashaa inta dhigtayaa qaatay iyo masaajidka may looma dhisan xaaladda rasuulku muxuu dhahay man samica rajulan qofkii qof maqla yanshudu ku naadinaya daalatan baadi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falyaqul ha dhaho laa raddaha allaahu ilaahay kuuma soo celiya calayka korkaaga ha kaa maqnaadaano faina almasaajida masaajidadu lam tubna lihaada arrintaa looma dhisine rawahu muslim wa canhu weli waa asaga abu hurayra anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal idaa ra'aytum haddaad aragtaan man yabiicu aw yabtac nin iibinaya ama iibsanaya fi lmasjid masaajidka dhexdiisa faquluu dhaha laa arbaxa allaahu tijaarataka ilahay kuguma faa'iidiyo ilaahay rabax kaama siiyo masaajidka dhexdiisa maanta wax lagu iibiyaa ma ogidin laakiin masaajidka gudihiisa suuqa intuu soo deeqi waayey intuu soo baxo ilmuhu ku soo dhaafa meesha intaasoo jooga mobil loo soo diraa ilaa shaatiga iyo intaasaa loo joogaa surwaalka intaasaa loo joogaa darsiga raba meeqan ka siiya waxaad ka siisaa inta ka maqlaysa meesha taagaya intaa ka sii masaajidka dhexdiisa ilaahay kuma barakeeyo dheh ilaahay kuuguma rabixiya tijaaradaada waayo inta adduunkii suuqa nagu soo deeqi waay 6 subaxyaa la furaa dadka ugu horeeya 6 maqribkaa laga soo tagaa halahaasaa nagu filnaan weysay 10 daqiiqo salaad duhur ah masaajid loo soo galay yaa loo soo dhigtay haddana tiya beec lagu sii dhexgadayaa marka waxaan fiicnayn waay xaaladda ilaahay subxaana wa tacaala dadku markay iimaanku ay beelaan mashaakil bay leeyihiin markaad aragtaan nin iibinaya ama iibsanaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faquluu dhaha laa arbax allah ilaahay kuuguma rabxiyo tijaarataka tijaaradaada nin baa saacad fiican wataa agtaaduu fadhiyaa masaajidkaa la joogaa miga gaday leeyahay waxaa laga yaasa marka waa la istilmaamaa mar gobol ka mida meeqankaa siiya intaa iga siiya masaajid gudihiisa ilahay idinkuma faa'iidiyo ilaahay idinkuma taajirin mana kuu rabxiyo ilaah subxaana wa tacaala rawahu nasaa'iyun watirmidi waxasanahu wacan xakiim bin xisaam qaala qaala rasuulu llah rasuulka alla sal alla alay slam wuxuu yidhi laa tuqaamu laguma oogo alxuduud fi lmasaajid walaa yustaqaadu fiiha mana lagu qoorgooyo macnaha xuduudaha masaajidada dhexdooda laguma oogo qofaa zinaystay inta masaajidka la keeno laguma garaaco meelahaasaa inta la geeya dadka muslimiinta loo waca markaasaa leeyahay ka soo xaadira say markaa u ogaadaan rawaahu axmed wa abu daawuud bisanadin daciif laakiin waa sanad daciifa wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi usiiba waxaa la asiibay sacd yowma alkhandaq maalintii dagaalkii khandaq fadaraba calayhi wuxuu uga sameeyey rasuulka rasuulullahi sal alla alay wasalam khaymatan tendho iyo fi lmasjidi masaajidka u dhex sameeyey liyacuuda ugu soo booqdo min qariibin meel dhow muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa sacd ninka lagu magacaabo ayaa dagaalkii uxud ee dagaalkii khandaq agxalka meeshaasaa wax ka gaaray dhaawac mar allaala markii uu ka gaaray wuu xanuunsaday xanuunka asaga waa tii reer bani qoraydana ay ballanta ka baxeen
rasuulka sallallahu alayhi wasallam reer bani qurayda waxa u yimid malakul jibriil oo yiri hubka ma dhigteen maya waan dhignay haddaan malaa'ignahay anaga weli waa wadnaaye qof yuusan tukan ilaa fi bani qurayda la taga ma ahani hadda hala dhaqaaqa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii qofkii dhaawaciisu faashid ku xirtay kii dhiig ka socday dhiigiisu mutaqaana waa la dhaqaaqay markii cabbaar la socday jidka casirka ku galay saxaabada qaar way tukadeen qaarna ma tukanin rasuulka ayaa ka daba yimid oo way u sheegeen arintii kuwan waxay dheen rasuulku ayaa la tukan kama wado salaad laga tagee dhaqsaha la gaarun buu ka wadaa laakiin haddii waqti salaad la gaaro waa tukanayna qolada waxay dheen xataa haddii qoraxdu la tukan mayno waa nabigu wuxuu dhahay yaa la tukan qof yuusan tukanin ilaa qoreeda laga tago cidna ma canaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam labadooda waa u saxay arintii ay sameeyeen sacad markii la hareereeyay reer bani qurayda ayuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam sacad igu waxa sacad dameer baa la soo saaray qumu ila sayidikum istaagod ka soo dejiye dameerka waa la soo dejiyay maxaad ku xukmin lahayd raggan ada xukminay baa la yiri markaasuu qof kasta oo qaan gaarayna orda laga gooyo intii yar oo aan wali qaan gaarinna hal iska daayo oo muslimiinta ay u shaqaynayaan hoos baa laga fiirinay ninkay caamada iyo timaha hoos ay ka soo dhashaan waa la dilaayay kaysan ka soo dhalanina yaraan baa loo arkayay ila rafaaca qurdi uu yiri ani waxaan ka dadkay aan kamid ah dadkiisa markaa ku soo dhalanin sacad waan ka noocaas ah saardarteed dhaawaca markuu gaaray rasuulku teendha masaajidka ugu dhisay si uu ugu soo booqdo meel markaa u dhow markii ilaahay indhiisa uu ku qaboojiyay sacad in ay ragga ilaahay subhanahu wa ta'ala wali rasuulku wuxuu yiri waxa ku xukmisay xukunkii ilaahay 7 sano korkooda ka soo xukmiyay fariiqan taqtuluna وتأسرون فريقا كوحنا ودليسان كوحنا وقفلنيسان بودا إله سبحانه وتعالى مركاسا سعد وحا داوعي باسي برقضي ديك فربضان باكسو بحي ومحي وحا أهل قيماي تنرد نوغا إيمانايا ولا فري وبسعد وديك بحي صاصو مركا كل انتوانيك الله تلمامي إن عرشك الرحمن كأقول رحضي مر الله لمركا أقيريو ذي دور كل أملاك باكسو قيب كشيبا لإريد أسكيسا سادرتين عجيب بدن بو أها كل وحو تلمامي مساجدك انت عند لوغو سميهي كل وصيحدين مساجدك الله سيحن كرو واحد باتن يسمى مركا اللهين وعنها وعائشة قالت وحيتي رأيت رسول الله رسولك الله أركي صلى الله عليه وسلم يسترني أصوصكي أسترها أصوصائي أسترها وأنا أنظر أني أنفيرين إلى الحبشة كوحمد مذو ويلعبون في المسجد مساجد كعيارة الحديث كعيارة يسيلو لجيدا عيار معها waxay sameynayeen aaladan dagaalka maalin ciidna way ahayd baa la yiraahdaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa nimanka reer bani arfida intuu u soo galay ayaa waxay ku ciyaarayeen bahasha dagaalka macnaha seefta iyo gaashaanka la isku dhiga iyo waa qismi kamid ah waxyaabaha diinta wax u tara ayagoo saa marka u sameynaya umratan soo tilmaamo soo kala buriyay dhaafuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidiina marka ahaada nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha ku yiri Aisha ma jeceshana daawato habaan iribay tiri markaasuu qadli dhabankiisa ugu aadiyay waskii asturaya anigana aan fiirsanayo saasan marka u fiirsana ilaa uu yiri manno bismiya markaasa iriha iska laabo riwaayada qaari taariikh qaar waxay tilmaantaa inuu meesha ka kortay Aisha radiyallahu anha ragina marka fiirsanayso ciyaarahay مداشي ماي لا مداشي ماي سيد سارنتها markii dambe tiri ha aniga raggan bay tiri meesha ku ciyaara aan dani xaaje kama lahayn laakiin hariifooyinka layla qabo aan rabay makaanka nabiga ka taaganayay ogaadaan bas waa kala kabanay bay tiri Aisha radiyallahu anha alhadith muttafaqun alayh marka hadithku wuxuu tilmaamaya xaaladaha noocaas iyo wixii wax u taraya masaajidka gudihiisa hadii lagu sameeyay binaysan jirin wa anha anna walidatan adon sawdaa madow kana laha khibaan tanday kulahayd fil masjid masaajidka dhexdiisa fakaarad waxay bay tiri Aisha walidada تأتيني من إيتي معها وإيمان جرتي فتحدث عن عندي أكتي إذا أي مركا كشي كين جرتي فتحدثت عندي الحديث متفق عليه قصة إرباء هذا قبل وليدة ضدك على هيستي أضم بيوهايت gabar ayay kamid dadkii haystay gabar yar ayaa kool baasha lagu koosha ayay haysatay markay la soo baxday banaankii ku ciyaaraysay marka
mar allaala markay ku ciyaaraysay yee meesha uga soo tagtay ama way ka dhacday dafaa timid baasha dafada ah kuushi bay markaa qaadatay hilib bay umalaynaysa way la tagtay gabadhan bay tuhmeen marka miskiintaan adaa qaadatay bay dheheen adaa xaday tuug baa tahay qoraxdaa la keenaa maalinkaas waa la garaacaa way i tuhmeen boorsadeediyaa la fatashay meel kastaa laga baaray waa laga waayey waxay isdhaheen amay qubulkeeda farjigeeda amay gelisay xataa intay kala qaadeenay fureen inay ku jireen in kale heerkaas ay gaarsiiyeen bay tiri ilaahay subxaana wa tacaala qofka xataa ay mtaqaan hadduu kaafir yahay ilahi subxaana wa tacala dulmiga ma ogola gaalnimadiisa ilaahayaa u haysta subxaana wa tacaala ayagoo saas ii ciqaabaaya oo meesha aan taaganahay amar ilaahay dafadii qaaday yaa intayna soo kor martay iyo saas u soo daysay bay tiri ayagoo arkaaya markaasay idaafeen kitaabeen bay dalabtay ay ka dalbadeen caaishay u timid inay bal xorayso gabadha caaishaa soo xoraysay mar allaala markay soo xoraysay soo noqotay islaamku soo gashay masaajidkaa teendha looga dhisay subax walbo caaisha subax bay u imaanaysaa markaasay mar allaala markay u timaada agteeda ku sheekaynaysaa subaxii dambe waa imaanaysaa shicir bay tirinaysaa leedaha wa yowma alwishaax maalintii kuusha min acaajiibi rabbina rabbiga caajibtiisay ka mid tahay ilaahay beled kufriga iiga soo badbaadiyey subxaana wa tacaala mar kastay ii timaado gabaygaasay tirinaysaa naa maxaad ka wadaa baan iri bay tiri maalintii dambe markaasay qisada iiga sheekaysay bay tiri caaisha say markaa wax u dhaceen ilaahay beled kufriga waa iga soo badbaadiyey alxadiid muttafaqun calayh dumarkiina masaajidka soo geli karaan danii xaaja hadday keentan lay seexan karaan buu xadiisku tilmaamaya can anas radia allahu canha can anas radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam albuzaaqu candhuuf fi lmasjidi masaajidka dhex ahaatoo lagu tufo khadi'atun waa dembi wa kafaaratuhaa waxa kafaaro gud u ahna dafna waa aasitaankeeda waan soo tilmaannay hadda waan soo marno masaajidada candhuufaha iyo laguma talagelin nebiga qiblada masaajidka markuu ku arkay wuu xuqay qof intuu dhahay bax istaaga ka tirtir ma jira asaa istaagay sal alla alayh wasalam oo ka nadiifiyey uu yidhi ilaahay ninkii qibladu idin dhexeeya hore ha u tufina candhuuftiina marka candhuuf masaajidka dhex ahaatay waa dembi waxaase looga asturayaa qofkoo looga dhaafaa inuu aaso dafnigii aasitaanka waa markuu masaajidku bacaad yahay ama haddoo kale waa inuu ka nadiifiyo saasaa loogu talagalay muttafaqun calayh wa canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyaamo dhici mayso xataa yatabaaha annaasu ilaa dadku ay ku faantamaan fi lmasaajidi masaajidada dhismihiisaa lagu faantami doonaa qurxintiisaa lagu faantami doonaa masaajidada in la soo dhiso waa ajir aad iyo aad u weyn sidaan tilmaannay laakiin waa in baahi ay jirtaan hadda haddii inta masaajid laga dhiso haddana xaafaddaa meesha isbitaalka gadaashiisa masaajidka laga sii dhiso haddana laabka kale masaajidka laga sii dhiso nin kasta oo dho anaa dhisaa kar anaa samaynaya baahina aysan jirin masaajidkaan la buuxin karin marka aakhiru zamanka waxaa la gaarayaa xilli uu faan noqdo masaajidada qof kasta oo ku faantama dhisitaankiisa alla dartiiba la waayo ninkiiba jaad ka soo shaqeeya maanta oo lacag badan jaadkii sigaar ku hela masaajid buu dhisaa maanta waa nin kastoo xaaraan ku taajira saa darteed baa waxay noqotay wax tabaahayo faantan ah akhrajahu alkhamsa ila tirmidi wasaxib ibn qusayma xadiiska saxiix yeelay وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت ليما أمر بوضع النبي بتشييد المساجد مساجد تقرحين تيدا أخرجه أبو داود وصعب بن حبان مع له لجلدا ووحي حد قدب مساجد إلا نظيفية لا بصه لا قرحية meel ilaahay lagu caabudo caadiya laga dhigo ama in la naqshaday saada soo tilmaanay dhinacaas waa wada jaala masaajidada qaarkood inta waa guduud inta ay kursiga ku qoran inta waxa ku qoran Allah baa lagu sawir inti kii tukanay maba tukanay waxa ku mashquul akhrinta saada soo tilmaanay khushuuci baa ibir noqonaya marka saadarteed ku dheeraan iyo ku xadgudub marka lagu sii xadgudbo xaalada noocaas ah malay amrin wa an Anas radiyallahu anhu qala rasuulki alla wuxuu yiri sallallahu عليه وسلم عرضت وحل بندقي علي كركيغ أجور أمتي أجري الكودة حتى القذات باليتصي وسق يخرجها معناه وحاليتصي أجور أمتي حتى القذات معناه وحاكمت هيد وسق يخرجها وكسر هي الرجل منكم من المسجد مساجدك قشن المساجد كارتو كقاضي وبنانك أطورتي
taa waxay ka mid tahay ajriyaalka ummadda. marka khayr baa lagu helaa masaajidkoo la nadiifiyo, masaajidkoo qashinka laga qaado, masaajidkoo wixii dhibay laga bixiyo. aad iyo aad bay markaa u fiican tahay. rawaahu abu daawuud watirmidiyun wastaqrabuu qariib yeelay wasaxib ibnu qusaymana xadiisku waa uu saxiix yeelay. almuhim wuxuu tilmaamaya xadiiska masaajidada nadiifinteeda in nadaafad lagu samaynay aad iyo aad u fiican tahay. wacan abi qadaada radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam idaa dakhala hadduu soo galo axadukum midkiin almasjida masaajidka falaa yajlis yuusan fariisanin xataa yusalli lahu tukado ragcatayn laba ragcadood muttafaqun calayh. ilaa laba ragcadood aad tukato ha fariisanin. masaajidka lagu salaamaya waa taxiitu masjid, saa darteed waa mamnuuc qofka inuu masaajid intuu iska soo galo iska fadhiisto. haddii salaad lagu jiro xilli salaad ay tahay salaadda iska soo gelaysa way kaa kaafinaysaa. allah lagugu lahaa sunna raatiba ah wax uun haddaan waxba lagugu lahayn oo waxba ku saarnayn laba ragcadood taxiitu masjid markaad tukanaysaa. xataa way noo imaan doontaa khudbada marka la gaaro ama jimcaha imaamkoo akhrinaya khatiibkoo akhrinaya haddaad soo gasho laba ragcadood waa lagaa rabaa waa tukanaysaa. laakiin qof horay u fadhiyey inuu istaago oo laba ragcadood uu tukada waa mamnuuc. dad baa xaaladda sameeya mar allaala markuu khatiibku fadhiisto intaa hariistu salaad u istaagaa laba ragcadood hala joojiyataa. laakiin qofka bannaanka ka yimaada asagu markaa waa tukanayaa. labadaa ragcadoodna waa taxiyaat masjidoo masaajidka yaa lagu sharfayaa laguna xurmaynayaa. sifatu salaati baanu geli doonnaa. wabillahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam.